طريق هدفكaaga diiwaangeli liiska hadafyadaada oo dhan oo ugu yaraan qor 10 hadaf oo aad doonayso inaad xaqiijiso u kala ratib himilooyinkaaga sida ay u kala muhiimsan yihiin diiwaangeli qiyamkaaga iyo mabaadi'daada diiwaangeli lis cusub oo himilooyinkaaga ah kuwaas oo waafaqsan qiyamkaaga qor 3 sababood ugu yaraan oo hadaf kasta ka dhigayso inuu daruuri yahay qor mushkiladaha aad filayso inay ku soo wajihi doonaan marka aad hadafkaaga xaqiijintiisa ku jirto haddana qor dariiqooyinka aad ugu adkaan karto mushkiladahaas u kala qaybi hadafyadaada mid dhow mid dhexe iyo mid fogba samee mid walba waqti xadidan oo aad ku dhamaystirto hadafyadaada dib u qiimee qorshaha aad ku fulinaysaa ha noqdo mid furfuran oo la jaan qaadi karo kol walba waxyaalaha cusub ee lama filaanka ah ugu dambayn mid ka mid ah bulshada ayaa doonaya inuu tago meel wuu diyaar garoobay kadibna wuu dhaqaajiyay laakiin jawiga wuxuu ahaa mid adag oo aan ku habboonayn safar laakiin ugu dambayn wuu gaaray meeshii uu u socday daal iyo dhib badan kadib halkaas oo uu kala kulmay ruux si degan u fadhiya oo il naxariis leh ku soo eegaya markii uu xaalkiisa u waramay uu u sheegay dhibka iyo waqtiga uu ku soo bixiyay inuu meeshaan imaado ayuu ninkii ku yiri miskiin haddii aad i weydiin lahayd waxaan kuu sheegi lahaa tareen toos u yimaada meeshaan daal iyo dhib midna lama kulanteen haddaba inta aadan dariiqa marin si aad hadafkaaga u gaarto iska hubso inaad dadka waraysato oo aad hesho macluumaad badan iyo khibrad taas oo kaa caawinaysa safarkaaga si aanad waqtigaaga iyo juhdigaaga ugu daycin meel cidlaa laga bilaabo maanta u fiirso fikirkaaga inta aanad awoodda saarin u fiirso awood saaridda fikirka inta aanu isku bedelin dareen u fiirso dareenkaaga inta aanu isku bedelin habdhaqan u fiirso habdhaqankaaga inta aanu isku bedelin natiijo adigu ma tihid ciwaanka aad naftaada siisay ama dadka kaleba ay siiyeen adigu ma tihid mid murugo iyo ciil iyo fashil loo abuuray adigu ma tihid iminka shakhsiga iminka midabka miisaanka ama xajmiga aad tahay iminka adigu ma tihid wax tegay wax jooga ama mustaqbal haddii qof dunida joogo wax xaqiijiyay adiguna waxaa ku suuragal ah inaad xaqiijiso oo weliba aad ka sarayso insha Allah had iyo jeer xasuuso in habeenku yahay bilowga maalinta jilaalkuna bilowga xagaaga xanuunkuna bilowga raaxada arrimaha adagna ay yihiin khayrka bilowgiisa saadaalinta wacanna ay tahay bilowga awoodda shakhsiga sida awgeeda noolow daqiiqad waliba sidii ay tahay tii u dambaysay noolow adiga oo Ilaahay jecel noolow adiga oo ku dayanaya akhlaaqdii rasuulka nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee jididiilo la noolow jihaad la noolow sabarkan la noolow jacayl la noolow oo qadari qiimaha noloshaada